naxariis waalidnimo ah kuma aanan soo korin ciil iyo xanuun badan mararka qaar haddaan dib u xasuusto. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي كيف ملبو الدنيا كجوكتان اسكو سو نقد وناكسن او ولي بخي سله وانيغو عبد الرحمن محمد اسماعيل channel ka anaga daawanaysidna waa Jabir Jamil official. Hadii aad nagu cusub tahay soo dhaw hadaad hor noolo joogteen waad ku mahadsantahay la jirkaaga aad ba kaaga mahad celinaya. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe, like, comment iyo share inta muhiim ay noo tahay. Waa tahay muuqaalkeena maanta haduu eebid insha Allah ta'ala wuxuu quseeyaa ama ku saabsan yahay waxay tahay waa qisadaasina waxay xambaarsan tahay muruga runtii aad u daran oo xanuun badan. waa tahay qisada intaan u gudo galin aanan bilaabin fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar waayo waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 20k subscribers aad baan kaaga mahadcelinayaa. waa tahay qisada aan caawa idin soo gudbi doono haduu eebid insha Allah ta'ala markii aan dhameeyo oo isla wada dhageysan doona idinkuna dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad dhagaha aad igu furtaan aad wada dhageysataan haduu eebidmo. waa tahay qisada markii aan dhameeyno haduu Ilaahay yiraahdo waxaan sameyn doonaa rogaal celin ama waxa inta aan ka faa'iidna qisadaas wixii ku dhex jiray. qisadaas haduu Ilaahay yiraahdo aniguna waxaan idin kula wadaagi doonaa halkan fiidiyodan gudihiisa idinkuna waxaad igula wadaagi doontaan halka iyo commentiga insha Allah ta'ala. waa tahay qisada ayaan inoo bilaabayaa haduu eebid insha Allah isla socod wanaagsan. qisadani waxay ku dhacday ama soo gudbisay waa gabar Soomaaliyeed waana qiso dhab ah sida iyada ay sheegtay. waxayna tiri waxaan jeclaystay inaad la wadaagto asxaabtaada adiga kugu xiran Jabir Jamil. waa tahay insha Allah ta'ala waan rajaynayaa inaan la wadaago asxaabta iyaduna maxaa la yiraahdaa sida ay ku qanacsanayd ee ku niyad furneedna waan u sameeynaa insha Allah. waa tahay qisadu waxay ku bilaabanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. qisadani waxa ay u dhacday sida tan. waxay tiri waxaan ahaa gabadhaasoo gabar yar ah hooyo iyo aabana aan lahayn micnaha rajo iyo agoon ayaan ahaa. waxaa isoo korisay ayay tiri eedo aabba la dhalatay. waxaan ku noolaa oo aan kusoo koray magaalada Muqdisho. eedo waxa ay haysatay 9 caruur ah. qaar ka mid ah way iga weynaayeen qaar ka mid ahna way iga yaraayeen. oo caruurta ay haysatay eedo 9 caruur eedo haysatay waxay leedahay qaarna way iga weynaayeen qaarna way iga yaraayeen. waa tahay waxayna dhigan jireen iskuul oo waxa ay baran jireen aniguse waxaan ahaa adeegto guriga ku eg oo waxaan ahaa qofka adeego guriga ayay tiri. eedo wax naxariis ah imay tusi jirin naxariis waalidnimo ah kuma aanan soo korin ciil iyo xanuun badan mararka qaar haddaan dib u xasuusto waan iska ilmeeyaa ayay tiri. mararka qaar markaan dib u xasuusto noloshii hore aan ku soo koray waan iska ilmeeyaa ayay tiri. waxaa dhacday in wiil aan darisnahay xiriir aan yeelano si qarsoodi ah oo qoyska waan ka qarin jiray muddo 3 sano. markaan wada soconay ayuu soo doontay kadib waxaa dhacday in ay familka kulmaan labada dhinac. okay waxay tiri waxaa dhacday markii in muddo ah aan aniga qisada maxaa la yiraahdaa intii hore weli way sii socotaa qisada laakiin waxaan rabaa intii hore inaan isku soo wada koobo. waxay tiri gabar waaye hooyo iyo aabbo ma laha waana guri joogto waxba ma barato. waxaa dhacday tiri xiriir inaan yeesho oo wiil xaafadda ciyaalka xaafadda iska ah inaan xiriir la yeesho. wiilkii marka xiriirka la yeeshayna aan ka qariyo waalidka ama familka. muddo 3 sanadood ahna waan ka qarinayay oo waxba uma aan sheegin. 3 sano kadib ayuu wiilkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu soo doonto uu guursado wiil aqal galo macna. marka waxay tiri labada dhinac labada dhinac waxay ka wadaa labada waalid in ay kulmaan oo si la isiiyo asaga oo aan u guursado. aad ayaan u farxay markii uu ii soo bandhigay guur. aniga aad ayaan u farxay oo waxa ii sawirantay wadada guusha oo aan kaga bixi lahaa nolosha adag. laakiin nasiib darro maalin maalmaha ka mid ah ayuu wiilkii soo wacay ina sheegay inuu i guursan karin sababo jira awgood. naxdin iyo walwal ayaa ii bilowday markaan muddo bil ah xaaladii xumayd ku jiray oo aan jacaylkii iyo hamigii halkaa ku waayay ayaan ogaaday inay eedo qoyskii wiilka igu dirtay kuna tiri ma og tihiin inay gabadhan xanuunsan tahay. oo ay qabto
cudur xun, laakiin ani waxaan ahay waalid. Meel aan kaga tago ma lahan, dawo ayay ku nooshahay. Sidaa darteed idinka ayaa go'aanka iska leh haddaad guursanaysaan iyo haddii kale. Halkaas waxaa iga burburay rajada guushayda. Yacni eedada waxay ku tiri gabadhan xanuun bay qabtaa, xanuun daran ayay qabtaa. Haddii aad guursanaysaan iyo haddii aad iska dhaafaysaan idinka ayay idin qusaysaa ayay ku tiri. Halkaasi waxaa iga burburay rajadii iyo guushii aan haminayay. Hal sano markii laga joogay, hal sano markii kasoo wareegatay ula jeedaa, hal sano markii laga joogay eedo way geeriyootay, anigana waan iskaga tagay. Gurigii nolol kale ayaan galay. Maanta waxaan ahay hooyo, balse waxaa isoo maray sheeko xanuun badan. wallaahi waa runtii sheeko xanuun badan oo aad iyo aad runtii u xanuun badan weliba. yacni qisada dulucdeeda ama isku soo duubkeeda ayaan rabaa inaan marka ugu horeyso aan soo koobo. gabadhan yacni sida ka muuqata sheekadeeda waxa waaye waxaa ka muuqda murugo aad u fara badan. waxay tiri marka hore waa gabar yar, haba yaraatee waa rajo iyo weliba agoon iskugu jirta. ilmihii ay la kortay ama ay ku dhex jirtayna waa dad arday ah wax baranaya, laakiin iyada wax ma barato oo waa gabar guri joogto ah oo u adeegta ilmahaas iyo weliba reerka. muddo markii ay joogtay isbarteen wiil ciyaalka xaafadda iska ah, si maxaa la yiraahdaa xiriir ah ay isku barteen. nolosheedana waxaa u iftiimay in ay heshay hamigii ay ku hamiyeysay oo ah in yacni maalin uun gurigaas ay ka bixi doonto oo laga guursan doono. laakiin nasiib xumo ayay tiri ma dhicin taas. wiilkii ayaa isoo wacay maalin maalmaha ka mid ah, iguna yiri kuma guursan karo sababo jira awgood, asagoo oonan weliba u caddeynay sababta jirta. laakiin waxay gadaal kasoo ogaatay oo dib ay kasoo xaqiijisatay in eedada guriga ee la joogtay ee la degan tahay in ay ku dirtay reerkii wiilka. ay ku tiri gabadhan waxay qabtaa xanuunadaasna haddii aad ku qaadanaysaan iyo haddii kale idinka ayay idin jirtaa. laakiin aniga waxaan ahay waalid, dhanna uguma tagaayo. waa qof ku nool dawooyin ayay isticmaashaa. qof la yiri marka qof xanuunsan oo dawooyin ku nool guursan leh, mase haddaad guursanaysid iyo haddii kale adeeg ku qusaysaa waalidkii la nooleedna ku dhahayo, waa dareemi kartaa dabcan cid rabta ma lahan. sidaas ayay ku tiri ayay dhahday oo waa ay iga dadisay. sanad markii laga joogay arrintaa iyada ah oo rajadeedii halkaas ay ku burburtay iyo sawirkii aan sawirtay iyo nolosha farxadda lahayd aan sawirtay halkaas markii ay ku go'day ay ku dhammaatay ayaa waxaa dhacday sanad markii laga joogay arrintaa iyada ah in eedadii ay tii rabbi u timaado oo ilaahay u oofsado oo geeriyooto. kadibna waxaa dhacday markii ay geeriyootay eedo in aniga aan iskaga soo tago gurigii oo aan nolol samaysto. haddase waxaan ahay hooyo ah, maamo ayaan noqday oo carruur ayaan leeyahay. laakiin markii aan soo xasuusto wixii dhacay, waxay tiri waxaan soo xasuustaa yacni murugo aad u fara badan oo urkutaalo ayay igu noqotay. runtii sheekada ama qisada intaas ayay ku eg tahay sidaad u wada jeedaan. aniga ahaan runtii aad iyo aad ayay u daran tahay qisadaasi, waana ka xumahay runtii 100%. laakiin hal mid ayaan kusoo wada koobayaa aniga oo laga baran karo qisadaas iyada ah. midaas oo ah adduunkan sidiisaba adduunkan aad buu u kooban yahay, u yar yahay. maalintaadana cid kaa hor istaagi karto ma jirto. dhib walba iyo rafaad walbana bilow ayay leeyihiin, dhammaadna way leeyihiin. wax walba oo dhibaato ah waxaa u baahan tahay keliya inaad u sabarto ood u dulqaadato. maalin waad ka baxaysaa, nafisna waad helaysaa. soo marka aniga ahaanteeda waxay ila muuqataa oo aan kusoo wada koobayaa in aad noqoto qof samir badan. maalin walba ma ahan maalin xun, maalin walbana ma ku xuma. maalintaada hadday xun tahay maanta, beritool ayay ficnaan doontaa. rajadaadana ha iska dilin, hana iska halaynin. maalin ammaanta ahayn ayaa imaan doonta oo kaaga qurux badan maanta. aniga ahaanteeda intaas ayaan kusoo koobay qisada dulucdeeda ama intii waracelinta ahayd. idinkuso waxaan idinkugu daaynayaa insha allahu tacaala inaad kusoo qortaan halka ay commentiga insha allah. videogan video caynka lamid intaan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadiino. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. bye bye.